Maamulka gobolka iyo maamulka madaarka Burco ayaa waxay saakayn ballaaran ku soo mareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco oo lagu kordhinayo 2 kiiloomitir oo lagu ballaarinayo dhabbada diyaaraduhu ka hadaan ee madaarka Burco. Ballaarintani lagu sameeyay garoonka magaalada Burco ayaa waxa uu qayb ka yahay qaybo cusub oo lagu kordhinayo garoonkaasi diyaaradaha ee magaalada Burco oo sanadihii u dambeeyay uu dhismihiisu soconayay, waxaana dhulkan lagu kordhinayo garoonka uu yahay mid ay leeyihiin dad shacab ah, iyadoo ay jiraan kuwii hore ee laga raray garoonkaasi ilaa iminka meel rasmi ah oo la dejiyay aanay jirin, iyo kuwa iminka laga rarayo oo iyagana aan loo hayn meel la dejiyo. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya mas'uuliyiinta indhaynta ku soo maray garoonkaasi. dib ugu yara noqdo sidii horeba la idinku sheegay, madaarku marka laga soo bilaabo gidaarka wadada qabata bariga ee laamiga ah marka laga soo bilaabo ilaa meesha siligu hadda uu ku dhamaaday aanu taaganahay waxa weeye 3 kiiloomitir ayuu dhererkiisu noqonayaa. ballaarkiisu uu kala yara duwan yahay, laakiin dhererkiisu intaas ayuu maaragtay maxay tahay noqonayaa. ICAO waxay soo saartay waa hay'ad caalami ah oo madaarada qaabilsan weeye. waxay soo saartay go'aan ah waxaan u jeedaa waxay soo saartay wax loo yaqaan master plan, yacni mustaqbalka sidee buu noqonayaa madaarku iyaguna wixii ay madaar u ictiraafaan unbaa madaar noqonaya. wasiirka wasaaradda maxamed xaashi labada xildhibaan hawsha badan u galay xildhibaan cali mareexaan iyo xildhibaan waabeeyo oo juhdi badan saaray si hawshan u qabsoomi lahayd, madaxweynaha laftiisa oo aan la'aantii waxba ka socoteen mudane axmed maxamed maxamuud aad baan mahad ugu naqayaa dhacdeen hawshan dhacday. waxaa kaloo mahad u naqaynaa dadkii kaga qayb qaatay dhulka ballaadhan ee la xidhay ee madaarka imika u xidhan dad baa deganaa, dadkaasna aad baan ugu mahadnaqaynaa. intaa haddaan ka gudbo, guddida madaarku waxa ay ku hawlan tahay sidii loo ballaarin lahaa madaarka. xukuumadduna waana u igmatay waana ku gacan siinaysaa. waxa aanu halkan ka iclaaminaynaa dadkii halkan iminka lagu socdo deganaa inay sida dadka hore dhulka u bixiya ay sidoo noqdaan. aad baan ugu boorinaynaa. dawladdu ay kala wareegtay ayaan la hadlayaa. waxaan leeyahay airportka Burco waa dan guud oo ummadda reer Somaliland iyo ummadda ku dhaqan gobolkan Togdheer ay wada leeyihiin. qof kasta manaafacaadkiisa waxba ka soo gaadhaya ama waxbuu ku leeyahay. sidaa daraadeed waxaynu u baahannahay inaynu isku aragti ka noqonno, inaynu isku si u aragno waxaynu leenahay oo wada leenahay inaynu wada dhisanayno. Inkastaba ha ahaatee dadweynaha ka agdhow garoonka diyaaradaha magaalada Burco ayaa ah mid aan dhismihiisa ilaa iminka la dhammayn. sanadad badan oo ka agdhow garoonkaasi oo ka guuray iyada oo ballanqaadyadii loo sameeyay dadkaasina aan la fulin. Maxamed Faarax Bile, wararka shabakadda caalamiga ah Tiraaf News, gudaha magaalada Burco.